السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين آمين آمين. أما بعد، أيها السادة الأعزاء، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. وبعد، walaalayaal mowduuca aan doonayo caawa in aan kala qeyb qaato walaalahay asxaabtayda, runtii waa mowduuc muhiim ah, xasaasi ah, aada loogu baahan yahay. waa fadliga ay leedahay sadaqada, in aan wax la baxno, in aan iscaawinno, isdhaafsanno gacmaha. sidaad ogsoontihiin walaalayaal, ilaahay markuu abuurayey uunkan khalaa'iqda uu abuurayey ma aanu simin, kuma aanu simin caafimaadka, kuma aanu simin hantida, kuma aanu simin xoogga. in badan ayaanu ku simin. mid walba wuxuu ilaahay u abuuray maslaxadiisa iyo sida ku habboon ee isaga u ogsoon yahay alle subxaanahu wa tacaala. qaar buu ilaahay caafimaad siiyey oo uu u qadaray, qaarna waa xanuunsan yihiin oo waa bukaan jiif oo waa bukaan socod. qaar wuu xoog buu ilaahay siiyey iyo awood iyo quwa, qaarna waa ducafo oo waa taag daran yihiin oo way tabar daran yihiin. qaar hanti wuu hodmiyey, hanti buu siiyey, taajiriin ayuu ka dhigay. qaarna waa fuqaro oo waa masaakiin oo waxay cunaan bay la-yihiin. mid walba sidii ku habbooneyd iyo maslaxadiisii iyo sida u wanaagsan ayuu ilaahay u abuuray. ma aha kan wax la siiyeyna in la jecel yahay, kan la qadiyeyna in la necab yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa markuu inoo uumay idaylkeen, isagoo ina imtixaamaya, kan wax la siiyey bal inuu nicmadaa ku shukriyo, kan la qadiyeyna inuu ku sabro. ilaahay wuxuuna dhex dhigay qaacido ah inaynu isku xiriirino, inaynu ku shaqayno. qaacidadaas oo ah in laiscaawiyo, watacaawanuu cala albiri waataqwa. isku caawiya oo isu kaalmaysta sida wanaagsan, waxyaabaha wanaagsan isgacan qabta. kan xoogga leh ha caawiyo kan daciifka ah, kan hantida leh ha caawiyo kan oo faqiirka ah, kan caafimaadka qaba ha caawiyo kan aan caafimaadka qabin ee jiran ee xanuunsan. walaalayaal, inaynu idaylkiin iswada caawino waa asal ka mid ah usuusha diinteenna. sadaqada oo barnaamijkeena caawa ah, faa'iidadeeda iyo sharafkeeda iyo wanaaggeeda wax walaalayaal la koobi karaya ma aha. walaalayaal, sadaqadan aada arkaysaan fadli fara badan bay leedahay, aad iyo aad u badan oo aan la soo koobi karin. waxa yare aan bixino ee adduunkan aan ku bixino ee aadka u yar ee agteena ku liita, waxa weeyaan ilaahay baa laablaabaya. laablaabkaas yuu usoo laabanaya, qofkii bixiyey ayuu usoo laabanayaa. adduunkan aakhirana ilaahay wuu siinayaa iyadoo aad iyo aad u balbalaaran. waa binasi laaya. so waxa ka faa'iidaysanaya sadaqada waa kuwe? waa annaga, waa dadka bixiyey. waxaad bixisid wax kaa tegay ma aha. xoolahaagoo dhan haddaad bixisid, xoolahaagoo dhan adiga kuu soo laabanayaan iyadoo fara badan oo laablaab ah. adduunkanaad ku helaysaa, aakharna waad ku helaysaa. binasi laaya, ilaahay suurat اlxadiid aayadda 11 wuxuu inagu leeyahay: man da aladii yuqridu اllaha qarda xasana fayudaacifahu lahu walahu ajru kariim. yaa ilaahay amaahinaya amaah wanaagsan. ila ilaahay ma aqbalo waxaan wanaagsanayn. yaa amaahinaya wixii yaraa ayaad bixinaysay ayaa waxaa laga dhigayaa amaah
oo maxaa looga dhigay amaahda wixii aad deymisid ama qof aada amaahisid way kuu soo laabanayaan, waa waxaagii kaama tegin. teeda kale wanaageeda fiiri, insaan haddaad adduunkan wax amaahisid lama ogolo inuu ku laablaabo, ribay noqonaysaa. laakiin maanta sadaqada aada bixisay ee miskiinka aada siisay ee amaahda xag alle ku aadaysa, ilaahay baa kuu laablaabaya. ilaahay waa kan amaahda adduunka in la laablaabo diiday, laakiin haddana isaga wuu ku laablaabayaa. ilaahay wax ka reeban ma laha, wixii buu ku badinayaa. fayudaacifahu lahu adduunka weeyaan, walahu ajrun kariim. aakhiro marka la gaaro ajar wanaagsan oo aada u fara badan, iyadoo aada u wanaagsan buurtaa la-eg ayuu ilaahay ku siinayaa. u kaalay suurat اlbaqara, laablaabka adduunka lagu laablaabaya waa debel. aayadda 245 suuraة الbaqara, man da اladii yuqrid اllaha qarضa xasana fayudaacifahu lahu adcaafa kahiira wallahu yaqbidhu wayabsutu wailayhi turjacuun. war waa kuma kan ilaahay wax amaahinaya oo ilaahay dayn siinaya, waa lagu qaadaya ogow, oo ilaahay uu u laablaabo adduunkan, uu u badiyo adduunkan. allahu akbar. fiiri, haddii maanta lacag aada bixisid ma aha ilaahay kariimnimadiisa iyo deeqsinimadiisa iyo wanaagga sadaqada ma aha tii keliya inuu ku laablaabayo. waxa laysu laablaabayo ogow lacagtun maahe. markaad caysh bixisid cayshkii uun in lagu laablaabayo ma aha, bal inta aada u baahan tahay iyo waxa baahidaada ay tahay iyo hareerahada waxa aada u baahan tahay adduunkan iyo aakhiro oo dhan baa lagu laablaabaya. allahu akbar. caysh baad bixisay ilaahay dartii iyo wixii lagaa rabay shuruudihii, caafimaadkii baa lagu laablaabi, amnigii baa lagu laablaabi, cayshkii iyo lacagihii baa lagu laablaabi, awlaadii sidoo kale, طuma'niinadii, xasiloonadii, deganaashihii, fahamkii, shaqadii, wanaagaagii, adduun aakhiro ilaahay baa ku laablaabaya. allahu akbar. wax walba ilaahay ku laablaabaya. waxa aada bixisaan addoomihii allow ee walaalihiin aada ku tartaan, wax kaa baxay ma aha, wax kaa tagay ma aha. akri suuraة الsaba aayadda 39aad, wamaa anfaqtum min shayءi fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayru الraasiqiin. wixii aada bixisaano shay uun ah, shay uun nakira, wax uun haddaad ilaahay dartii ula baxdaan, walaalihiin aada ugu deeqdaan, fahuwa yukhlifuhu, ilaahay baa bedelkiisa idin siinaya markiiba. maxaa wacay? ilaahay inta wax bixisa oo wax dadka wax siisa, allihii oo irsaaqda allihii u khayr badnaa weeyaan. allahu akbar. walaalayaal, so waxaan ogaanaynaa waxa aanu bixinaa yaa ka faa'iidaya, yay u soo laabanayaan, qofkii bixiye usoo laabanayaan. waa mid. teeda kale, waxa kaa soo gaaraya xoolaha aada bixisay ayaa ka badan waxa miskiinka ka gaaraya. taasna waa ina ogaataan. markaad maanta caysh siisid, cayshkii unbuu cunaya, calooshii u buuxinay, laakiin adiga ilaahay baa ku laablaabaya adduun iyo aakhiro. ta kale, yaa waay ninka ka faa'iidaya sadaqada, ma isaga mise adiga? muntafica adiga weeyaan, oo waxaagii. wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayri tajiduuhu cinda allahi, kaama tegin. wixii aada nafsadiina u hormarisaan ayaa la yihi oo khayr ah, ilahay agtiisaad ka helaysaan. allahu akbar. so isaga wuu cunay, masqushuu geeyey, wuu oona biyo siisay, sidoo kale waa ceel baad u qoday, wuu ku intifaacay. adduun weeyaan, adiga laakiin adduunkii oo laablaaba, aakhiro ajarkii aada u weyn ayaad helaysaa. wax ka wanaag badan miyaad aragteen sadaqada? walaalayaal, sadaqada noocaa ah u kaale qiso yar oo qofka wax uu bixiyo keliya inaan loo laablaabaynin, bal ilaahay uu khayraad badan iyo nafaxaad badan iyo wanaag badan uu siinaayo. u kaale addoontan wiil ayay dhashay, hooyo ayaa wiil dhashay, wiilkii safar ayay u dirtay. intuu maqnaa maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo doonaysa inay wax cunto, xabad caysh ah ayay soo qaadatay. mar allaale markay goosan rabtay ayaa waxaa u soo garaacay saa'il, nin miskiina albaabka.
way ka furtay maxaa rabtaa isii gaaja ay haysee wax isii xabadii cayskay rabtay inay cunto iyadoona goosanin afka intay ka celisay tiri hoo ilaahay dartii bay u bixisay way siisay alaaliyo markay siisay oo uu tegey wiilkii baa maalin dambe u yimid waa wiilkeedii baa safarka ka soo laabtay hooyadii buu u sheekaynayaa hooyo waxaan ku soo arkay safarkaygii wax aan la yaaba hooyo bal ii fasir hooyo sidaan ula socday safarka oo aan dameerkaygii u saaraa ayaa waxaa na soo dhex galay oo na soo weeraray libaax markaasuu igala degay dameerkii wuu cararay dadkii way kala firdheen ninba meel buu u booday libaaxii baa afka igu qaatay godkiisii ayuu ila galay wuu igu fariistay wiilku waa cidiyeysan yahay dhiig baa ka socda wuu igu fariistay markuu doonayay de inuu i cuno afka u ii geliyo ayaa ana aan wareersanahay aanan taag lahayn awood lahayn maanta aan u baahnaa in gacan la isiiyo hiil iyo hooba ayaa waxaan arkay nin giant oo weyn oo dharar badan oo dhar cad wato qurux badan ayaan arkay markaasuu libaaxii tunka intuu qabtay ayuu dhulka la dhacay oo uu leeyahay qum yaa kalb luqmatun biluqma allahu akbar bahalkii isagoo ordayo xaqiiru iga cararay waan farxay ninkii baan sidaa u jalleecay mise ninkii maba jooga waan is eegay boorkii bal inaan iska jafa waxba ima gaarin walaa meel jaraaxale walaa dhiig walaa dhaawac midna waan yaabay waan soo ordayo safarkii ayaan ka daba imid way yaabeen hooyo ninkiina waan waayey hooyo muxuu ka wadayay ninka luqmatun biluqma hooyada way yaabtay waxay tiri hooyo goormay ahayd saacadday ahayd wuu u sheegay waxay ku aadan tahay saacaddii hooyada cayshka ay rabtay inay cuntay gaajada haysay laakiin ay u doortay miskiinka oo ay intay iska qabatay ilaahay dartii ay siisay miskiinka saacadda iyada ah ayaa wiilkeediina libaaxa laga dhiciyey eeg luqmatun luqmo waa cantuugo weeyaan waa hal mar wax afka la gashto iyadii luqmadana hooyada ay u daysay ilaahay dartii oo ay miskiinka siisay ayaa ilaahay wuxuu ku badbaadiyey biluqma wiilkeedoo la cantuugi lahaa oo libaax cuni lahaa luqmatun biluqma ilaahay dartii bay u daysay ilaahay dartii baa loogu badbaadiyey wiilkeedii marka faa'iidada shilin markaa bixisid ma aha lacag keliya waxa la laablaabaya bal caafimaadkii baa lagu laablaaba balaayaa lagaa celinaa hamigii ku haayey fikirkii ku haayey stresskii culayskii faham daradii dhaqaalo daradii wanaagda wixii oo dhan ba ilaahay ma aragtaaye uu ilaahay kuugu furaya in sharax buu ilaahay keenaya yaan loo dayma la-aanin marka inaan wax sadaqaysana teeda kale walaalayaal sadaqada marka aynu wax sadaqaysanaynaa si aynu wanaaggan u helno laablaabkan aynu u helno adduun aakhirana aanan uga qadin oo ilaahay ajarkaa faraha badan uu inoo siiyo maxaan u baahannahay sadaqadii wax aan la baxeenno dhowr shuruudood ilaahay saddex haddaan idiin sheego waa inaad u bixisaa si qalbi wanaag ah can tiibi nafs waa inaad ku bixisaa waa inaad ku bixisaa can ghina nafs inaadan ka daba qaylinaynin allah boqolka haddaan maanta konton un ka bixin lahaa allah haddaan iska haysan lahaa allah haddaan sidaa yeeli lahaa allah haddaan maanta anaa u baxnaa waa inaadan alla aadan ka daba dirin oo aadan ka daba geynin adigoo raalli ah oo aanan daba soconin waa in wixii aad qalbi wanaagsan ku bixisaa waa mid waa shardi tan kale dhib iyo gallad sheegasho waa inaadan ka daba geenin يا أيها الذين آمنوا إلهي محل سبحانه وتعالى سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى dadka alii nabi rumeeyow wax markaa la baxaysaan adduunka ha lidin laablaaba aakhirana ha lidin geeye ha ku burinina oo ha ku baabi'inina gallad seegasho iyo dhib war waxaan qaylida badan maalin walba waxbaan siiya iridun buu ii taagan yahay war nin weyn baa tahay orodoo shaqayso war wax yahow ma weliga tuugsanaya wixii maadaama aad bixinaysid qayli iyo dhib wa ama saa'ila falaa tanhar war ha gulguulina dadka wax baryootamay baahi baa haysa waxaan yaysan kaa burburin ee si wanaagsan oo qalbi wanaagsan ku bixi galladan iska ilaaliya ha ku gallad sheeganina allah
waxaan so kii annaga aan korinaynay ma aha, hoosteena kii kusoo koray, so kaan kumiyaalka u diri jiray, so kaan kirada ka bixin jiray, iskuolka ka bixin jiray. allah war kan haddaynaan annaga haddaynaan ahayn war siduu ku noolaan lahaa, warkan baahi un baa dili lahayda ogow, annagu ilaahay nagu furtay. allah galad sheegaysada war adiga iyo isagaba allah subxaanahu watacaala ayaa idin irsaaqaya. ma aha dadkan inay liitaan, ma aha ma aha dadkan inay naga hooseeyaan. waa annagoo kale, waa waalidka, waa walaalka, waa walaasha, waa saaxiibka, waa abti iyo adeer, waa dadkeeni, waa wixiina dhalay, waa wixii aan sii dhalay, waa aqribadeeni, waxa wax la siinaya ogow. aayaddii maxay ahayd? suuraة الbaqara, yas'aluunaka maada yunfiquun qul maa anfaqtum min khayri he falilwaalidayni wاlأqrabiina wاlyataama wاlmasaakiini wbni الsabiil wma tafcaluu min khayri faina allaha bihi caliim. yani waxay ku weydiinayaan, waxay bixinayaan, yay siinayaan, yaa ugu horeeya. waxaad tiraahdaa haddaad wax un bixinaysaan oo khayr oo xoolo aho maal ah, yaa ugu horeeya falilwaalidayni, hooyadii aabbaha, awowga, waalidiintii, asalkaagii, yaa ku xiga qaraabadii. makaa liitaan bay kula tahay marka, soo yaynaan hoos u fiirinin. waa lasu wada baahan yahay. waa kii lacagta haystay, waa kii badeecadda hayay, waa kii xooggii xamaali lahaa ee qaadi lahaa. qof walbaa ka kale u baahan yahay. so in lais caawiyo, qaacidada maxaan nidhi? qaacidada na dhex taalla annaga oo dhan ee aan ku wada shaqaynaynaa ilaahay dhexdeena u yeelay waa maxay? atacaawun, watacaawanuu cala albiri waataqwa. weligan yanaan ilaawin. u kaalay caaisha iyo umuna caaisha radi allahu canha iyo saxaabadeeni salafkeeni say u qaabili jireen dadkan baryootamaya ee saa'iliinta ah. caaisha radi allahu canha waxay leedahay mar allaala markii miskiin uu u yimaado, shilinka intay soo qaado hadday hayso catar ay u dhexgeliso ayay siin jirtay. ninka miskiinka uu duceynayaa, markaas iyana u duceyn jirtay, iyadoo faraxsan iyo isagoo faraxsan ayay kala tegi jireen. marka la weydiiyo oo la yidhaahda caaishay maxaad catarka aad u gelinaysaa? kow, ninka maxaa ugu duceynaysaa? waxay dhihi jirtay waxaan u gelinayaa catarka, waxaan ogahay sadaqada in uu ilaahay guddoomayo oo gacantiisa uu igaga aqbalayo, uu igaga qaadayo ka hor miskiinka intaanu qaadin. so ilaahay gacantiisa waxaan rabaa inay iigu dhacaan wax wanaagsan. allahu akbar. oo maxaa ugu duceynaysaa? waxaan ugu duceynayaa, waxaan ka baqayaa, waa ijtihaadkeeda, ducadiisa. ilaa wuu duceynayaa daa'iman marka wax la siiyo, ducadiisa iyo shilinkaygii inay isu baxaan oo aan wax waayo. so waxaan rabaa ducadayda iyo ducadiisa inay isu baxaan, shilinkaygii oo aada u wanaagsan qiyaamaha isagoo laablaaba adduun aakhira inaan helo. caqligeeda. allahu akbar, allahu akbar. zawjatu rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam, ilaahay baa u dooray. walaalayaal, caaisha waxay aaminsan tahay hadalka xabiibka salawaatu اllahi wasalaamuhu calayhi, asaadiq اlmasduuq aladi laa yantiqu can اlhawa in huwa ila waxyu yuuxaa. waata uu leeyahay man taصadaqa bicadli tamrati min kasbi طayib walaa yaqbal اllahu ila الطayib faina allaha yataqabalha biyamiinihi ثuma yurabiha lisaaxibiha kama yurabi axadukum faluwahu xatى takuna mithla jabal. allahu akbar. qofkii in la eg timir sadaqaysta oo kasab ama irsaaq xalaal ah ka sadaqaysta, ilaa ilaahay ma aqbalo waxaan xalaal ahayne. qofkii ka sadaqaysta ilaahay baa gacantiisa midigta ah kaga qaadayo, kaga guddoomaya. markaasuu u weyneeya oo u badiyaa sidii midkiin uu u ilaaliyo oo u xanaaneeyo faraska cunugiisa. faraska waa arkay marka aad baa loo jeclaa waayadii hore, oo sida maanta oo kale ma aha. aad buu shay u qiimi badan ee qofka uu leeyahay ayuu ahaa, ee uu ku duulaan tago, uu ku safro, uu maaragtay uu xanaanaysto. xoolaha ku ugu wanaagsan fardahay ahaayeen. faraska markuu dhalo cunugiisa indhaha lagama qaadi jirin,
waa la xanaaneyna, waa loo qabayna, waa loo shanlayna, waxbaa la siina, waa la ilaalina, waa indhaha hortooday keensan jireen ilaa uu ka weynaado. sida midkiin uu u xanaaneeyo oo u koriyo oo u barbaariyo oo u ayaa midkiin faraska cunigiisa ayuu ilaahay sadaqada kugu barbaarinaya ilaa ay kala ekaato buur. allahu akbar. caysh baad bixinaysaa, ilaahay dartii u bixinaysaa, maalinka qiyaamaha ah waxaad u tegaysaa iyadoo buur ah oo aada yaabaysaa. allahu akbar. faa'iidada waxaa iska leh sadaqada iska leh. caaisha marka waa taa. ayib u kaalay saxaabigan taabicigan kale Fudayl ibn Cayaad wuxuu aaminsan yahay dadkan inaanay naga hooseynin, bal in waxa keliya ee lagu kala sareeya ay tahay ina akramakum cinda allahi atqaakum. cabsi ilaahay. imisaa taajiriin ahoo sare jooga ka kaadayo ilaahay aan u sujuudin walciyaadu billah. imisa masaakiin oo maanta quud aan heli karin, maalinkiina sooman, habeenkiina ilaahay u taagan. allahu akbar. imisa ina akramakum cinda allahi atqaakum. Fudayl ibn Cayaad mar allaala marka saa'il soo garaaca oo la yidhaahdo waa saa'il, waxbuu rabaa, waa miskiin, muxuu dhihi jiray nicma saa'iluun. ku wax weydiistaa kuwii u fadli badnaa weeyaan. le maxaa dhacay Fudayl? maxaa dhacay? raximaka allah. wuxuu dhihi jiray yaxmiluuna aswaadana ilى اlآakhirati bgayri ujratin xataa yadacuuha fi lmiisaani bayna yaday الraxmaan. kuwan waxay noo qaadayaan saa'iliinta ah zaadkeynii, sahaydeynii, xoolaheynii aan halkan yeelay aan tacbanay xalaash aha ayay noo qaadayaan, dhabarkay noogu qaadayaan bigayri ujra, ajri la-aan iyo lacag la-aan, bilaash, ilaa ay qiyaamaha noo geeyaan, miisaanka ay noo saaraan ilaahay hortii. adduunkan marka aad khudaar u dirsatid qof oo waxyar iisoo qabo aad dhahdid gacanta u taagan wax ii dhiib, laakiin iyaga fiiri wax walbo aad u dhiibatid hantidaadoo dhan haddaad u dhiibatid aakhiray ku geynaan, miisaanka ilaahay hortiya kuu saaraayan, waxna kaama rabaan. allahu akbar. so waa dad micnaha annaga noo khidmaynayo waay, annagay noo khidmaynayaan, annagana iyagaa u khidmaynayna, waa laisu khidmaynaya, waa laisu baahan yahay, waa laiskaabayaa. allahu akbar. gacmo isdhaafahee gacal ku jiraa. walaalayaal u kaalay taabicigan kale isagana Sufyaan athawri, imaamkan weyn, mar allaala marka irida loo soo garaaco muxuu dhihi jiray oo la yidhaahdo waa saa'il, muxuu dhihi jiray marxaban biman jaa yagsilu dunuubana. soo dhowow oo kaalay kii u yimid inuu dembigeena dhaqow. allahu akbar. war ma insaan baa insaan dembi ka dhaqay? kama dhaqee, laakiin wuxuu leeyahay sababtii lagaaga dhaqi lahaa. marka intuu yimaado saa'il aad siisid, wax aad u taagtid, wuxuu ilaahay ku siiyey aad wax ka siisid, siinta aad siisay gacantaada ay ka baxeen, dembigiina waa dhaqmaya. yaa sabab u noqday? ninkan haddaanu imaan lahayn lagaama dhaqeen. farxaddaasaa lagu qaabili jiray. so waxa aan bixinaynaa horta dadka waa inaynan u arkin inay naga hooseeyaan, waa simannahay, bal way naga sareeyaan qaarkood. wax aan bixinaynaa waa inay noqdaan wax jawdo leh, waa inay noqdaan wax tayo leh, waa inay noqdaan wax ay ku intifaacaan dadkan, waxa annaga aan jecel lahay, bal waxa aan jeclaan lahayn in annaga layna siiyo. ilahi wuxuu lehi subxaanaه wataعaalى lan tanaalu اlbir xatىa tunfiquu mima tuxibuun. ali cimraan. yani gaari maysaan wanaag adduun iyo aakhiro, laablaabkaan heli maysaan, lidinka aqbali maayo sadaqada ilaa aad ka bixisaan waxa aad jeceshihiin. bimacnaa waa maxay? waxa aad nacdeen iyo waxa idinka yaraaday, wax dulufka iyo waxaa soo reebteen iyo hambadii, waxaas oon markaad dheerigteen caloosha halkaas sida fuustadii ay idin weynaato un dadka intaad soo xusuustaan deriskii, war waxaan isugu dardaro intaan intii la daadin lahaa siiya. sheekh waxaas ma wanaagsana, waa laga fiican yahay. mima tuxibuun xataa tunfiquu mima tuxibuun, waxa aad jeceshihiin. soo xabiibka ma uusan dhihin salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih. iimaankiina midkiin iimaankii taam noqon maayo, buuxsami maayo, ma kaamilmayo ilaa uu la jeclaado walaalkii waxa nafsadiisa uu la jecel yahay. ma jeceshaha hambe in lagu siiyo adiga?
jeceshahay khamiis soo dhamaaday oo wasaq badan oo mid jeexjeexan mid yaraaday mid kaba baabahoo dhamaaday oo in lagu siiyo ma jeceshahay ma jeclid waxaad jeceshahay si karaamo leh cizi leh sharaf leh in wax qurux badan oo wanaagsan lagu siiyaad jeceshahay soo ma sidaa la jeclo walaalka adigana waa ta uuna amrayo ilaahay rasuulkiisa allahu akbar diinteena macaankeeda fiir marka sadaqadan aad arkaysid aad bixinaysid way aday kuu soo laabanaysaa waxa aad ka helaysid ayaa ka badan wax miskiinka uu ka helayo kan ku intifaacaya waa adiga adduunka waa laablaab aakhirana waa ajar fara badan si qurux badan ayaa la rabaa marka in aad u bixisid wax qurux badan inaad bixisid qalbi qurux badan aad ku bixisid wakti munaasiba aad bixisid watacaawanuu cala albiri waataqwa yaynan ilaawin walaalayaal mideeda kale sadaqada qiimiga badan sharafka leh laablaabka wanaagga leh ma dadka waxhaysta unba ayaan u leh oo nasiib u helaya in ay helaan oo ay wax bixiyaan ilaa iyagaa ilaahay wax siiyo hod maaragtay ilaahay uu hodmiye mise dadka kalena waa laga rabaa dadka kale ideelkood inayna ka qadin ayaa loo baahan yahay sidaan ka arki doono saxaabadeenii salafkeenii dadkii naga horeeyey inta waxhaysato un kuma unan ekayn bal inta kalena way dadaali jireen bal inay gaaraan dadka oo ay kasii badiyaan aan ku horumarno kuwa waxhaysta markay soo degatay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun waxaa istaagay abu طalxat اlansaari nin ansaaru ahaa waa dadka ugu xoolaha badan beer buu lahaa la yihahda bayruxaa beertaa rasuulkaa jeclaa masaajidka afkiisay ku taale rasuulka waxay ku taale masaajidka rasuulka afkiisay ku taale yani horaadkiisa rasuulka markuu masaajidka imanayo beertuu geli jiray wuu biyuu ka cabi jiray wuu ku nasan jiray saxaabadu way tegi jireen ninkan wuu ku dhaqnaa oo wax ugu weyn ugu qaalaysan dee wax walbay u ahayd beerta wax kale ma aanu haysanin taqriiban 600 in ka badan oo timirna waa ku taali hantidiisii oo dhan ba waa ra'su maalkiisii reerkii baa ugu dhaqano ilmihii baa ugu dhaqano qaraabadii oo dhan baa ku wada noolo ayda markay soo degatay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wanaag gaari maysaan addunya aakhiro ilaa aad bixisaan waxa aad jeceshihiin wuxuu u tegay rasuulka salawaatu llahi wasalaamu caleyh qalbigaa wanaagsan fiiri iyo sida sadaqada loogu ordaayo wuxuu yihi rasuul allah waxaa kugu soo degay lan tanaalu lbir waa ogahay anna waxaan leeyahay waxa iigu wanaagsan ee aan ugu jeclahay waa bayruxaa beertaa weeyaan waa gartay ilaahay iyo rasuulkiisa ayaan u hibeeyey sadaqo weeyaane me allaale meeshaa jeceshahay dhig allahu akbar allahu akbar wuu dhiibay qalbi wanaagsan oo ku dhiibay waa wixii ugu wanaagsanay u jeclaa si qalbi wanaagsan ah dhib iyo wax kale ma unan raacinin sidii ayuu ku dhiibay laakiin xabiibka raxiimka ah salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo u naxariisanaya dadkiisa fuqaradiisa maaragtay saxaabadiisa ummadda oo dhan raxmad wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin oo haddana uu leeyahy ilaahi subxaanahu watacaala fabima raxmati min allahi linta lahum raxmad xag ilaahay ka timid oo lagu wadeeco yeelay oo gudahaada la dhigay oo lagugu daday ayaad ku jilacday muxuu ku sameeyey saxaabigii waa beertii qaraabadiisu ay ku dhaqnaayeen waa beertii keliya ay biilanayeen ilmihiisa iyo reerkiisa xoolo kale ma haysto ninka ugu taajirsan laakiin muxuu taajir ku yahay beertaa ayuu taajir ku yahay muxuu yihi rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yihi waa laga aqbalay waanu kaa aqbalnay waanu kaa qaadnay waana kuu soo celinay adaan kuu soo celinay wuu ka guddoomi sadaqadii waa u dhacday adaan kugu soo celiyey haddana qaraabadaada iyo xigtadaada ilma adeerada dadkaad ku biili jirtay u qaybi allahu akbar allahu akbar ya inta in leeg ayay farxayaan dadkiiba ilma adeeradii iyo qaraabadii ayuu u qaybiyey ayib ka kale u kaale haddana cumar ibn اkhaaab radia allahu canhu cumar weligii wuxuu la tartami jiray abubakr صidiiq maalinba rasuulka wuxuu amray salawaatu ullahi wasalaamuh calayhi wuxuu amray in la sadaqaysto sadquuna amri buu yihi rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxay ku soo aaday maalin aan aad iyo aad wax u haysto oo gacantayda ay wax ku jiraan aan ladnahay markaasaan idhi walle maanta ababakar ha loo yaabaa
waa inaan ka raaya oo aan ka badiyaa gurigii intaan tagaan xoolahaygii bar soo qaaday oo aan rasuulka soo hordhigay salى الlahu عalayhi wasalam. markaan soo hordhigay ayaa wuxuu yihi war cumarow maxaad usoo reebtay oo aada usoo dhaaftay ilmahaagii iyo xaaskaagii ehelkaagii? wuxuu yihi intaan in la eg ayaan usoo dhaafay, nus baan usoo dhaafay. meeshii buu fadhiyaa, waxaa yimid cumar baa sheekeynaya radi allahu canhu, ababakr صadiiq radi allahu canhu oo xoolihiisii oo dhan soo qaaday oo soo raray, rasuulkuu soo agdhigi salى الlahu alay wasalam. wuxuu yihi ababakr maxaad usoo reebtay oo aada usoo dhaaftay ehelkaagii iyo ilmahaagii? wuxuu yihi ayaa yaab badan, alla iimaankiisa xoogana, waxaan usoo dhaafay allah ilaahay iyo rasuulkiisa salى الlahu alayhi wasalam. iimaankiisa eg intuu la egyahay. cumar waa quustay radi allahu canhu, wuxuu yihi maanta kadib la tartami maayo ababakr صadiiq. sidaasaa khayrka logu, waa dadkii waxaystay ogow, midna maalkiisii o dhan, midna beertiisii o dhan, maal nuskii ayuu bixiyey xoolihiisii, nus buu usoo dhaafay ilmihiisii. u kaale ku aan waxba haysanin, khayrkan khayr laga qadi kara ma aha sadaqada. waa ka cabdullahi bni mascuud radi allahu canhu ayaa sheekeynaya, wuxuu leeyahay rasuulka ayaa wuxuuna amray inaan soo sadaqaysano, wuxuuna amray wakti midkayo uusan heli karin, kumi aanu heli karin oo waxba aanu haysanin, laakiin miyuu haray? maya. markaasuu midkeenna wuxuu aadayaa suuqa, markaasuu soo xamaalayaa, dhabarku wax ku qaadaya, dad buu wuxuu soo xamaalaya, qoryuu soo gurayaa. wa habeenkii ayaan mud raashin ah ayaan ula imanaynaa rasuulka oo aan sadaqa ma aragtaye aan u dhiibeynaa. allahu akbar. rasuulka markaas salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dabcan wuu barakeynayaa. waxaan ogahay buu leh cabdullaahi bn mascuud waaga radi allahu canhu, waagaa dad sidaas ah aan waxba haysanin oo intay soo shaqeeyaan maalinkii wixii ay sadaqaysan lahaayeen, shoodii masigada ahayd, intay maalinkii o dhan soo xamaalaan, habeenkii sadaqo u bixiyaan. maanta waxaan ogahay xoolahooda 100,000 ay ka badan tahay lacagahooda iyo dirhamkooda iyo dinaarkooda. adduunka waa laablaab, aakhirana waa ajar fara badan. yani idan dhaafin faa'iidadan faraha badan walaalayaal, wax laga qadi karaya maaha. teeda kale kii waxhaystay wuu degdegayaa, xoolihiisii o dhan buu bixinayaa. kii kale nus buu bixinayaa. kan waxaysanin intuu qoryi soo guro dhabarku kusoo qaadaya, wuu soo xamaalaya, wuu soo dhididaya cashan in uu la baxo sadaqada. war dadkan maxaa wada daafica, waxa shidaya ee kicinaya, himigan u yeelaya caaliga ah ee sareeya waa maxay? waxa weeyaan waxay ogsoon yihiin sadaqada sirta ku jirtay ogsoon yihiin. waa sadaqadu waa wiqaayat min annaar, naarta ayay kaa ilaalinaysaa. rasuulka soo ma uusan dhihin salى الlahu عalayhi wasalam faاtaqu الnaara walow bishiqi tamra, war kaga dhowrsada naarta oo isaga dhiga oo isaga difaaca, walow timir nuskeed allaha ka dhigeen. allahu akbar. sidaa weeyaan sadaqada waxaa loo baahan yahay daa'iman, ha yaraysanin walow qosol walaalkaa wejigiisa oo aada u dhoola cadaysid oo aada hortiisa ku qosashid, allaha ka dhigeen. soo muusan dhihin xabiibkeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhim laa taxqirana min almacruufi shayئa walow an talqى akhaaka biwajhin طalqa. allahu akbar. ha yaraysanin wanaagga, ha yaraysanin shayga wanaagsan, fadiilada ha yaraysanin. allaha ka dhigo inaad walaalkaa ku qaabishid weji dhoola cadeen oo furfuran, waad helaysaa. walkalimatu طayiba sadaqa, maalinka qiyaamaha waa helaysaa. waxaasoo dhan wada sadaqo weeyaan. ayib waxay kaloo ogsoon yihiin sadaqada inay tahay daawo, dadkooda xanuunsan ayay ku daaweyn jireen. waa ka uu dhahaya xabiibkeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhi, daawuu mardaakum bisadaqa, ku daaweeye dadkiina xanuunsan, ya bukaan jiifka, bukaan socodka, sadaqada ku daaweeye. waxay yeeli jireen qof xanuunsan ayay ka sadaqayn jireen, ilaahay waa u caafin jiray. laakiin ha ogaada, waxaa ogaataan ilaahay lama jarabo, lama tijaabiye ilaahay, yaqiin baa lagula dhaqmaa ilaahay. bal inuu ii caafimaadaan fiirinaya, ama intaasoo jeeraan wax siiyo masaajid wax ku darsado ilaahay waxana faa'iido ma aanan helin, tijaabo lama rabo, yaqiin baa la rabaa ilaahay wuu ku caafinaya. waxay kala ogsoon yihiin ya in wax yaray bixinayaan oo ay qalbi wanaagsan ku bixinayaan,
maalinka qiyaama har ilaahay maalinka har kale aanu jirin inay helayaan. waa damaan harka ilaahay maalinka qiyaama sadaqada ad arkaysaan. almar'u taxta dili sadaqatihi ywma alqiyaama, qofku wuxuu harsanayaa maalinka qiyaama sadaqadii adduunka uu kula baxay xabad ceesh allah ka dhigay harkeedu harsanaya. xadiiskiina waad garanaysaan toddobada ilaahay hareeyey, sabcatun yudiluhum اllahu fii dilihi ywma laa dila ilaa diluhu. toddoba ilaahay wuxuu hareeyaa maalinka qiyaama harkiisa maalin har kale aanu jirin. waa harkiisoo keliya ogow. waxaa kamid ah warajulu taصadaqa bisadaqati faakfaaha xatىa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuhu. allahu akbar. nin sadaqaystay sadaqo oo qariyey xataa laa taclama shimaaluh, si ayn u ogaanin bidixdiisa waxa midigtiisu ay bixinayso. maa tunfiqu yamiinuh. allahu akbar, allahu akbar. maxaan u baahannahay? nafsadeenna maxaan u baahannahay? waxyaabo fara badan. waa maroo laablaaba u baahannahay, waa maroo in ilaahayna ilaaliyaan u baahannahay, waa maroo in caafimaadkeenii inuu ilaahayna siiyo, ilmihii ilaahay noo baraariyo oo noo badiyo, saalixiin nooga dhigaan u baahannahay. waxaan u baahannahay in ilaahayna difaaco, waxaan u baahannahay balaayo oo dhan inuu ilaahay naga fogeeyo. waa wada xanuunsannahay, caafimaad baan u baahannahay. stress iyo balaayo iyo hami iyo fikir iyo kami xayiraantihi balaaya naga buuxday inuu ilaahay naga qaado, inuu ilaahay xasilooni deganaansho wanaagsanaan inshiraaxu lqalbi inuu ilaahay noo keeno, qabow inuu ilaahay noo keeno, inuu ilaahayna dejiyo. waxaan u baahannahay aakhiro inuu ilaahay laablaab iyo ajir. waxaan u baahannahay in aan boos xiranno oo damaan jannada aan boos ka qabsanno, inaan harka ilaahay wax ka qabsanno. abaabakr sadiiq asxaabada badankooda toddobada qayboodba way qabsadeen. toddobadaasba way qabsadeen. waa toddobada shay ee harka ilaahay qofka maaragtay u sababaya intuba way qabsadeen. laakiin annaga toddobadaba haddaynaan ka gaarin at least ugu yaraan waa inaan sadaqadaa qabsanaa. ya sadaqada aan ku dadaalnaa. wadankeeni waad garanaysaan, wadankeeni waa majaaca ka jirta, gaajaa ka jirta. wadankeeni masaakiin badan ayaa joogta. wadankeeni dad baa wax u baahan, dhaawaca baa jira oo dagaaladii 20 sano ku dhaawacmay. dad baan waxba haysanin, guryo haysanin, aanan maaragtay xoolo haysanin, dad baan shaqo haysanin, dad baan wax ay cunaan iyo meelay seexdaan iyo waxay ku socdaan iyo waxbarasho iyo wax ka bixi iyo waxay huudaan iyo waxay xidhaan iyo wixii oo dhan bay wada leeyihin. farxaddii oo dhan baa ka gurto ayn haysanin. dadna waa kana oo meelay wax kala dhigaan bay laayihiin. aan ugu dhowaano dadka walaalaheena ah, ilaahay aan ugu dhowaano. waxa ilaahay uuna siiyey, xoolaha ilaahay uuna siiyey, ilaahay uu leeyahay aan adoomadiisa ugu dhowaano oo aan u dhiibno si farxad leh aan ugu dhiibno. yaan la ilaawin, yaan la ilaawin qaraabadii, yaan la ilaawin waalidkii, yaan la ilaawin dadkeenii, dalkeenii. wax walba iyaga noo ah. akhiiran waxaan kusoo gabagabeynayaa, wamaa tuqadimuu لأنfusiكم min khayri tajiduuhu cinda allah. nafsadiina wixii aad u hormarisaan oo khayr ah waxaad ka helaysaan ilaahay agtiisa. astawdickum اllah aladi laa tadiicu wadaa'icuhu. asalaamu عalaykum waraxmat اllahi wbarakaatuh.